adiga shaqo kuma dawladdaas u shaqeeya mushaarka la siiyana ilmihiisa iyo naagihiisu siiya adiga waxba kuma siiyo waxaaba laga yaabaa inuu ku aqoonin maxaa marka isu dambaajine maxay dhahan abgaalka markay shirbeen nin dooran doorta xaw dhahdeen oo dadka xaw dambaajiseen u dhah walaalayaal ciyaalkiina yaryarka oo majarteenka oo tiktokarada dhex ordaaya systemka dawladnimada iyo qabiilka kala saara qabiilkaaga adaa u dhalatay adaa ilaahay ka abuuray ama faqri ha ku ahaado ama reerkiinu laba neef oo ari hal ahaan jireen ama reerkiinu fillo ha ku soo koreen aday ku taala haddaad faqri ku soo kortayna waa ilaahay irsaaqadu ku siiye waay haddaad guri qani ah ku soo kortayna ilaahay intaas ku ugu talagalay laakiin dawladnimada dadka aad ku abiyuus gareynaysaan oo aad dadka nacniga siinaysaan iska daaya akhlaaq xumada ah social media la joogtaan iska daaya anagoo reer hebela noo tiri yaan ku tiriya askari baan leenahay askariga ma adaa iska leh askariga dawladda Puntland iska leh mushaarku qaatan ilmihiisu siiya adiga kuma siiyo kuma yaqaano adiga inta yarto ilaahay kugu irsaaqaad leedahay qabiil hadii ay dib ku gaarto askariga inta loo tago ninka madaxda loo tago magta kaama bixinaayo nabadoonkaaga loo tagaaya waa hadaa Soomaaliya joogtid qabiilka wax isugu ka dardaraaya magta halkaas lagu kala qaata reer hebel maxaan meeqanin baan ku lahayn lama dhahayo sarkaalka ha loo yeero marka walaalayaalow aniga dhalinyaroy waliba dhalinyarada majeerteenka ahow waliba dhalinyarada Maxamuud Saleebaanka ahow dadka ha isnacsiinina waxa la nin la caayo caroonina waa la waay nin la faasho farxina waa la waay wiil dhalinyaro ah oo cashuur bixiye ah oo reer Puntland ah oo weligeed xildhibaan ka soo noqon Puntland ba Puntland kula degan oo ku qanacsan Puntland darnimada waagu markuu bariya inta qolalka ku soo cartay adoo soo cadayanin bad waxaad leedahay aniga inta soo madaxweynaha Puntland iga soo maray in gumeed ka kala jira adigu maxaa ku leedahay Puntland ma waxba u tartay mise waxbaad u dhintay markaa ilaan adigu cashuurtiisa dawlad ku tahay dawladda askariga Puntland nabadiisa ilaalinaya cashuur bixiyaha Puntland buu nabadda ku ilaaliya adiga marka dadkii Puntland wax taraayo oo cashuur bixiyayaasha ahaa aflagaada marka ula soo fariisatid ma dhibaataad ku tahay systemka iyo dawladnimada iyo kala dambeynta mise wanaaga u geysata mise dadka nacsiinaysa adigu ma shaydaan yaro kurtun oo la soo diray baata oo ilmo gugunaaf ah ilmo gugunaabaad walaal boqortooyadii Ismaaniyiinta waa hore u dhamaatay waqtigeedu waa dhamaaday SYL bay noqdeen way qaadeen iyagoo boqortooyo xaafun degan bay waxay tageen Soomaaliya waxay u raadiyeen dawladnimo way ku guuleysteen kala dambeyn bay u sameeyeen SYL wax la dhahay sameeyeen dawlad baarlamaanteeriye ka soo saareen halkaas ay marsiiyeen waxay u hibeeyeen Soomaaliya boqortooyadooda u hibeeyeen wixii inta ka dambeeyay Soomaaliya dawlad bay noqotay marka walaal waxa idin sheegaya dhalinyaradiina yaryarka ah adiga aabaha meeqa wiil buu dhalay tiri aabaha ma faqri buu ahaa maxera aribaad ku soo kortay sariir fiican ma ku seexatay reerkiina xoolo ma leeyihiin adigu shahaado ma haysataa wax ma soo baratay reerkiina ma u shaqaysaa dadka meega inta kula qaado oday miskiino oo madaxtooyo taagan waxba kaama geline maxaa adiga reerahan kuraasta ku fadhiya hadda fiiri dhaqan xumadaas in kuraas la isla tiriyo dhaqanka waxa waa dhalinyarada ma jeerteen bas ba iska leh dadka kala meegaga way wada qaataan iyagoo shakhsi ah bay kala wada qaataan ama iyagoo qabiil ah system iyo dawladnimo kuma soo noqdaan laakiin wiilkan ma jeerteenka assalaamu calaykum markuu wuxuu leeyahay laba dekadood baan leeyahay ma adaa dhisatay labada dekadood eelboor baan leeyahay $1 ma ku darsatay maxaa ka galay eelboorkan iyo labadan dekadood waxa ka galay eelboorkan iyo labadan dekadood yaa kugu naaray yaa ku dirsaday ma adaa dhisatay waliga cashuur ma bixisay Puntland $1 ma ku dartay MC ajla dhisayo $10 ma ku darsatay iska wax u qabso waliga ma u qabatay geed ma beertay walaalayaal dhalinyarada waliba ma jeerteenka aho dadka Puntland ha nacsiinina oo ha ku dirina oo umada ha dhibina oo idinkana ha isdhibina oo hana ishafrina wiilashiina yarka afka abuurka ka sii deynaa ha ishafrina oo soo dhawaada raali ahaada waa idinka dulqayliyay waxba rabna hadhow inaan ka sheekayno ku soo Axmed Xaashiyo